waxyarun kadib markii madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu dib uga soo muuqday shir jaraa'id oo hakad ka galay muddo kooban ayuu sheegay in qof lagu toogtay goob u dhow aqalka cad Mareykanka halkaas oo uu ku hayay shir jaraa'id taasina ay soo dadajisay inuu hakad galo shirkii jaraa'id ee madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wariyaasha u sheegay inay haatan xaaladda u muuqanayso mid degan isla markaana laamaha ammaanka iyo ilaalada aqalka cadba ay kuleysteen inay xakameeyaan dhacdadii dhacday halkaas ee galaafatay nolosha ruux Mareykan ah. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa shir jaraa'id oo ku hayay aqalka cad lagala cararay kadib markii ay arintani dhacday balse wax yar kadib ayuu dib ugu soo laabtay shirkiisa jaraa'id waxaana soo harkacay oo hagayay mid ka mid ah ilaaladiisa kaasoo goobta uga soo hormaray kahor inta uusan mar labaad soo muuqanin madaxweynaha dalka Mareykanka. madaxweynaha oo ku guda jira shirkiisa jaraa'id ayaa waxa soo dhaxgalay mid ka mid ah ilaaladiisa waxa uu si hoose dhegta wax ugu sheegay madaxweynaha waxaana markaasi kadib madaxweynaha oo la gardaadinaya si weyn loo ilaalinayo laga saaray goobtii shirka jaraa'id uu ku hayay iyadoo dadkii halkaasi goobjooga ahaa iyo warfideenadii halkaasi uu kula hadlayay madaxweynaha toona aanan waxba loo sheegin. toddobaadkan waa mid ka mid ah toddobaadyadii ugu adkaa una culays ka badnaa ee abid soo mara madaxweynaha iminka talada haya ee dalka Mareykanka Donald Trump maadaama meel masaafo yar u jirta lagu toogtay muwaadin Mareykan ah taasi oo qalqal gelisay xaaladiisa ammaan.